koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan duqowdii kalamaaney maskaxdii dahanaysay maanta way iga digniin xoog haddaad dilaa tahay haddaad qurux ku daran tahay haddaad magac ku dadan tahay haddaad darasho xidhan tahay haddaad daaro fooqiyo dad yaduunya leedahay duubkii caddaa iyo camalkaagii dunidaa duur kala carraabiye intaad dibadda joogtaan dib in loo xisaabtamo sheekadaha lagu daro aakhira dambayse alla ilaaha waa laga dul hadlay odaga war haddii lika kor hadalay gurhaansaarka hal jeeyey hindaan war iin sheego dagaaldan yoonta bilaayad wadiin joojeesadinay duqaydinka aryaadhaha sanadkan dhammaadka dad badan aad dhintay ee ilaahayow sanadkan soo socda noo xasili war dad kala dilay waaye waxa badnaay aryaa ama toosa loo dilo amba si dadban ha loo dile waxaan idin dhihi lahay how sanateegaasa gootintiis kan soo socdaana soo dhoweyn war sanadkii tegey barbar ayuu ahaa sanadkanna waa dhiindhin war allah u naxariistay xuseen oo faarax wuxuu yidhi qaar koo horreeyo hodanaa na dhaafae kuwa harayna dabadaa waa la hubsan doonaa kii noo hagaagee noqo loo han weyn yahay war allah u naxariistay cabdulaahi qarshe wuxuu yidhi belada hore rooran tan dambana reeban tan haraaruhuna riixan tan korena raaran tan hoosena radeeban marka ilaahay sharta ha naga fogeeyo war abaan xilsadhuux wuxuu yidhi shiddana la joogtaay bax shar soo soctaay gudban waraadhaha dagaaladii ka socday gelgaduud iyo hiiraan midka hiiraana horreeyey dagaalla adag oo khasaaro badanna waa ahaayeen dawladdu wafdi culus oo degdegahay u magacaawday dagaalka gelgaduud oo wasiirka arrimaha guduhu hoggaaminayo senatar cabdi qaybdiid iyo xildhibaanno kale iyo ay ka buuxaan midkii ka horreeyo hiiraanna ilaa hadda wafdi looma dirin marka nin baa wuxuu yidhi qararkeeda maxaas muddaa laysku qalaayay qowlna muusan lahayne ma liig kaloo qubanaayoo kan ka qaalisan baa qarafaan u boqoolay qaybdiidna ku raacay mase waa la qasbo qoorqabaday ku baxeen webagohoba hadhambalama meeli illiisayteelah ku hiree wala kala lutlayla marii kore maskiin way adiga dad isdirirayaa lagu sheegee waxa faruuranood sheegaysa xayta war weriye cabdulaahi canshuur oo ka soo xigtay xanuunka faruuranka oo ku soo badanaya muqdisho warnimayo horta way iska qayliseene labadab hadba kii dambaa la danshaa haa kan horena ma leeskala hera ha hulaaqe war dad baaba waxay leeyihiin ehel diriray inay soo daweeyaan wafdiga dawladdu uma bixine etoobiyaan la qabtay inay soo badbaadiyaan bay u baxeen war anigu waxaan la yaabanahay dagaalka sukeeya hadda socdo wax kalaa ku soo saayiday qolo walba oo dagaalka ku jirto inay samaacdo u weenshiteen heesihii saban ee dagaalka ahaa ay mid walba ku tuurteen ceesaantii masiiya good madax shabeelleefta maalageediyaa galay may isku qaadeen maya waxay isku qaadeen haddii aanan soo noqon qabiilkayga nuurow naar kama sokeeye allah ayuu ku nabad yeel arwalax kaloo qaadeenaan oga haddii aanan dhulkaygow dhig sokeeya kugu qubin beel hubaysan kama dhalan war wadaadkii iyo hartiisii bil ka hor ay shabaab gaalkacay ku dardareen mid ka waalan ayaa wuxuu la baxay sayidka adduun iyo aakhiro acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ilka kana ishaa ka dhace warkaasu sugaami ilka kana ganfuurka kanya war waalli waxaa ugu daran baa la yidhi wadaad waasha aryaadhaha salaamullaah calaa xujaaj waayo kanu kii horaa i qarsa ahaay warwar jiramog baa tihiine sanadkan shaqadii laga rabay baarlamaanka maanta ayuu qabtay war hal sano iyo hal maalmiya warwar maysiin arsenaal waa laga badiyey liverpoolaa 5 iyo 1 ku garaacday arsenaal geeska afrika al-shabaab looga yaqaan warwarka ay dhax galinine miisaaniyaddii waayahan lagu murmaayay horta war lagama soo celin sharcigii naafada waa la ansixiyey oo macal bidaartii ku jirto xeeroosadkii baarlamaanka waa la ansixiyey xaqsiintii ciidankana waa la ansixiyey warnimaya onti kale saha laakiin may ka tabeena dadku bubuurin inoo la kadara sheegaysaan kor iyo hoosba waa la ansixiyey haddii bidaartii xeer hoosaad la ansixiyey war xildhibaan jeesa wuxuu yidhi xildhibaan kasta inuu
wasiir noqdo rabaa sababtoo wasiir ku-xigeenka xildhibaanka $7,000 u qaataa bil kasta wasiirkuna labalaabkeeda u qaataa waxaan maqli jira ninna shaahow shuba waayay ninna shaarka ku yaraaday warnimayo mar horaa laydin yidhi xildhibaan markay ugu yar tahay rabay wasiir dawlo qabiil miday wadaagaan haddii booskii laga siiyo waa qodob dastuuriya inuu mooshin ciirsado waraa nimanka intaasoo mushaara qaata ma waxay rabaan askari $100 qaataa inuu waardiyeeyo oo difaaco u dhinto war niman yahow baydhabo maanta u dambaysay waxaa lagu qabtay gaari qarax lagu soo raray maalmo horena qaraxyo badanaa lagu qabtay waxaa kaloo dhowr jeer lagu qabtay dad wax dilay marka ciidanka baydhabo joogo maa muqdisho la keeno buda war bilaayada ninka saaridoy ciidan asluub leh meel roogo aryaa ciidankaas buda hana loo keeno waa u baahannahe warnimada warkii hore war soo dhaaf waa yeelayaa bambaa yimid madaxweyne xaaf wuxuu yidhi maalin walba iyo habeen walba waftiyaal iska qulqulaya iyo ciidamo la soo amray iyo dal aan nala kala tashanayn ayaa socotuu yidhi cunaqabataynna waa nalaga sameeyey oo ilihii dhaqaalaha nalaga xidhay marka wuxuu yidhi waxaan ka baqaynaa wakhtiyada soo socda sidii roobow in la yidhaha soo qabtee soo xidha jeel nala ku tuuro war adooga madihta oo adaw waan qaraabanaynaa ma ayagaan u fadhinaynaa ya eedsadayda war hadduu nabadii nool jeeb gashin lahaa xaaf meeshar uu mar lahaa aryaadhaha anigu waxaan la yaabanahay puntland waxay tihi wax dawladda ka socda ununka nooma imaan karaan xataa shaqaalo dawla hadduu yahay soo ma geli karo puntlanday dhaheen yaa puntland dawladda wallee xildhibaanno iyo wasiirra kuma laha waa yaabe warwaranaysiina jubbada dhexe xalay cirkaa looga soo dhacay shabaab haw dambug kabtayda aawa kibriidkayga aawa ka dhacday waxaana ku dhinta baa la yidhi kuwa soomaaliga lama xisaabiyo lama rabee liibiyaan iyo suuriyaan niman ah liibiya xaynaga soo jiraysa laameeriya haddishe suuriya saxaa noo soo raaca sodooda saar ha lagu tumee wadaa liibiya hadda ka horba waa tii 77 etoobiya iyo ruush noo soo raacday ma ololadiyon shaqaystayaalu ma aha indaqadaafi mar horas dhintay maxa waxa moohaasiin waraasee sheekh axmed madoobe ciidankii nabasuudo hadda dagaal hal galow yidhi mar dambe yaa agteela tuurnaanuu yidhi waraa macluulo axmed madoobe maxaa lagaa siiya ayaan gafuurka ugu dhufanne arya adiga xaa kaa gala xaad gafuur ugu dhifa maadowmaha kuu joogaa war nimayo hadal lama rabo iyo muran waddanku waa idin sugayaa waddanka u shaqeeya mas-uuliyadda waajibkiinna ka qaata shaqada taalla waryaa dadkan qabaa'ilada ah oo isdilaya geedaha hoostiisa isku leenaya maxay ku dhimanayaan xaa leesu leeyahaa dhulkaanu asaas soo heraahe waryaa mas-uuliyad darradaasaa la rabaa inaad ka hor tagtaan madaxa misaaru ha kaaga dhacdee